madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo maalmihii u dambeeyay safar ku maray gobolada bariga Soomaaliland waxa maanta madaxweynaha iyo wafdidiisa uu hogaaminayo si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxaana duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo madaxweynaha iyo wafdidiisa kaga hortagay maamulka heer gobol iyo heer degme ee gobolka Sanaag iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Sanaag soo dhaweyntaasi kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdidiisu waxa ay socod luga ku dhex mareen shaariciyada waaweyn ee gobolka Sanaag intaasi kadib madaxweynaha iyo wafdidiisa waxa loo soo galbiyay khayriyada magaalada Ceerigaabo oo ah goobtii loo asteeyay madaxweynaha iyo wafdidiisu inay shacabka reer Sanaag kala hadlaan ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Tiimbaro xuqaal waxgarad ka soo jeeda gobolka Sanaag kuwaasoo dhammaantoodba soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdidiisa madaxweyne adiga wafdigaaga sharafta leh ku soo dhaweeyo gobolka Sanaag ku soo dhaweeyo Ceerigaabo waxa weeye ardaystaad waa guriga abayaasha awooyaasha hooyooyinka ayeeyooyinka ku soo dhaweeyo madaxweyne waa gobolkii inta Soomaaliya ku hadasha Soomaalida inta ugu badnayd ay ka soo safarantay dadweynaha ku nool gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo oo xantii iska reebay beel lagu faanee runta lagu faraanaaye maanta waynu iska reebnay xantii saafi baanu nahay dad calowsan baanu nahay laakiin waxaanu nahay dad waxay doonayaan ay tabanayaan qarsana sheegan karaan Soomaali Maxamed Soomaali oo dhan gobolkeedii weeye waxaa laga garanayaa wasiirada kula socda majilida Soomaali oo dhan waxa weeye waa Soomaali oo dhan inaan kugu soo dhaweyno gobolkaagii degmada Ceerigaabo reer Ceerigaabo oo dhan annagoo wada dhan annagoo aan kala wanayn baan kugu soo dhaweynaynaa iyaguna waxa halkaasi hadalka iska daba maray xubno kamida gorihiisa wasiirada dadka shaqada ka dhigtay Ceerigaabo aygaas iyo Ceerigaabo madaxweynaha lagama ogola Ceerigaabo madaxweynaha laga ogolayay laba tahay way muuqataa maanta meel walbana waa lagu arki doonaa dhex lugeynaya waa arkaysaan waxa halkaa ka bannaan ma jiraan shaqooyin kale meelaha ka raadsanaba waa safar xaqiiqada ka tarjumaya Soomaaliland ay maanta ku sugan tahay sida uu meeyarku sheegayna waxaan isleeyahay Ceerigaabo ayaa wanka gashay waxaa idinka muuqda shacni iyo wanaag iyo sharaf waxaanu idinkaga wargeynaynaa inaad fadhi waa ku dhawaaqayso laakiin waxaan oranayaa waa A+ madaxweyne waxaa la yidhi guuraraac iyo caruur waa loo kala warramaa ismana arkaan reer Ceerigaabo waa ka reer Sanaag waa ka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu dambeyntii isaguna halkaasi ka hadlay isla markaana shacabka reer Sanaag uga mahadnaqay soo dhaweyntii ballaaneed ay u sameeyeen isaga iyo wafdidiisa dadweynaha reer Sanaag oo ilaa shalay halkii aan istaagnaba cadceedda loo taagnaa ilaa xadka Sanaag inta aanu soo galay iyo maanta oo Ceerigaabo waxaan hore loo arag ama soo baxaan hore loo arag oo kalgacal iyo xiise iyo xamaasad wata oo aan sheekh iyo ciroole iyo caruur iyo rag iyo haween aan u kala harin oo madaxdoodii hogaaminayaan walaalayaal farxadda iyo rayraynta iyo kalgacalka aanu tusteen aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa ninka Ceerigaabo eedeynayana wax dheeraad ka jirana waa beenti dad gobol walba khilaaf waa ka jira gobol walba qabaal waa isku laayaan wax u dheeriyo lagu canaanan kara Sanaag ma jirto Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Saab TV